ololaha doorashooyinka golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka oo guud ahaanba ka bilaabmay gobolada Somaliland oo ay maalintii koobaad ahayd xisbiga cadaaladda iyo daryeelka iyo taageerayaasha xisbiga UCD ee degmada Ceelafin ku soo bandhigeen cududooda taageere ay u hayaan xisbiga UCD iyagoo ku labisnaa astaanta calanka oo xisbiga UCD iyo stiikar ay ku hardhanaayeen xildhibaanada baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka waxaana taageerayaasha xisbiga soo buux dhaafiyeen xafiiska guud ee ololaha degmada Ceelafin waxaana ugu horeyn taageerayaasha la hadlay afayeenka guud ee xisbiga UCD محمد علي بلال قدوميها حسبي وعودة دقمة عيلفين محمد عبد الدائرة يحلبانا كشرحن قلياش البرلمان كيو ديغانك حسبي سيعود يقول عربابي كنا ديراضي إن تاغيرياش ذو عضيان كوبي صدن كمي ما لنت لو كلا على فقاد الدون قيد السياسة نهي واريين نهي كل شيء عليه اللي بان نبعد محين نقول دونان كوا قبل كوكس الرئية إن شاء الله كارهان دقمة عيلفين اللي بانا ذا سواك هو وسيرو تبيان الصومالي لما رجع في ما توعد مرة بعد مر صدحات وحن له حسبي قوعد بيننا هاي وحن دوننا هنا عد كان كوب صنو ما تسيد القروح يوسوا ذا استاكتين إلى تكوب يصدق كمينا ساعة عد كان وارقنا بين دوننا رجع في هديننا هاي لو اللي بانا اسكسيت كان عن باشية عجة وابولكا إيوه وسيرو تو annaguna haddaan idiin sheegno waana wada garanaysaa reer Ceelafin bay wada nahay waxaan doonaynaa marka hore inaan ku noqono sidii hore aynu ahaan jirnay soo wada garanaysaan oo isku dhamaystiran oo aan cid kale lahayn waxay maanta u dabaaldegayeen xafiisyadooda soo bax weyn oo ballaaran oo aad u qiimo badan oo 10 u noqotay xisbiyada kale 10 u noqonaysa ucid meel kasta ay joogtaba way isku xiran tahay waxaan rajaynaynaa inaad si gaar ah xisbiga UCD xildhibaano miisaan leh wanaagsan aad ugu soo saartaan maanta waxa weeyaan waa maalinteennii xisbiga UCD baale 23 bishii janaad weeye 2021 waxaynu maanta isu soo baxaynu ugu horeeyay weeye xoogaa waxaad moodaa inay xaflado fiican baa dhacay laakiin haddana kulliba waa laynagu soo horeysiyo mucaaradka in inta badan shar baa laga tuuraa waxay ahayd xisbiga kulmiye ugu soo horeeyo laakiin inaga laynagu soo horeysiyay inagana waa iska caabinay soo maaha waa iska celnay soo maaha waynu guulaysanay soo maaha waxaynu u kaambeen garaynaynaa waxaynu u soo baxaynaa sida looga soo baxo caalamka looga soo baxo marka hore waxaan aad u salaamayaa taageerayaasha UCD degmada Ceelafin anigoo ku hadlaya afkii xisbiga ahna madaxa kaambeenka abaabulka degmada Cabdicasiis Cabdullaahi Ibraahim aad baan idin salaamayaa hambaliyaan ilaahay hambaliyo saas ugu soo baxdeen iyadoo xisbigu qoondeeyay inaan maanta khayraadada la isugu tagin musharax kastaaba uu soo bandhigo xafiisyadiisa hortiisa ku dabaaldego waxaan aad iyo aad ugu hambaliyeenayaa siday waqtigooda nagu soo hureen dhalinyarada halkan isugu timi iyo marwooyinka iyo shacabkan faraha badan oo soo abaabuleen labada xildhibaan ee isku sidkan Ismaaciil Cambaashe iyo Ciga Xuseen bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaan taageerayaasha xisbiga UCD iyo xildhibaanada golaha deegaanka iyo golaha wakiilada Ismaaciil Cambaashe iyo Ciga Xuseen aad iyo aad baa mahadsantiin sida sharafta iyo qiimaha badan ee ay isugu soo baxdeen maanta waa maalintii koobaad ee ololaha doorashada xisbiga UCD u lahaa maanta xildhibaan waliba wuxuu ku dabaaldegayaa xafiiskiisa weydinka xafiiskii labada xildhibaan ee isku sidkan jooga waxaan idinka codsanayaa sidaa sharafta leh ay isugu soo baxdeen iyo karaamada iyo qadarinta ku jirto maalinta 31 May inaa codkiina u siisaan xildhibaanada golaha deegaanka iyo golaha wakiilada dhammaantaan soo UCD ma nihin waa cadceed وانا كليل إلهي وحن كرجين إنه نقوتي الرحماتكيسو يا بان يكون ما هاد نقيا يسوع صباح لين ماتا أو أي تهاي حفلة ديو الرئيسي حسبي قاعد وحن كشرحنا حسبي قاعد حسبي بيننا هاي حسبي بيننا هاي قوش ياله
guushayaa leh ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu xisbigeennu guulaysto oo uu soo baxo xildhibaanadeenna oo dhammi ay soo baxaan dhammaantood waxaan ahay aqal soomaali baan ahay dhaqankii baan dib ugu noqday ceelaf nayweynna waxaan doonayaa inay siday ahaan jirto ku noqoto insha allah bismillaahi kariim xisbiga uciid dhammaantiin waa idin salaamayaa taageerayaasha xisbiga uciid taageerayaasha waxaan leeyahay waa maalintii koowaad ee aynu bilownay ololaheenna waxaan doonaynaa ilaa galabta 6 galabnimo inaas ololuhu waynoo soconayaan hadda un ma dhamma xafiisyadiinna ka ololaynaysaan waxaad doonaya inaad hadashaan qof waliba hadlo qof waliba soo jeediya ra'yigiisa ucid waxay u baahan tahay iyo taageerayaashiinuba inaad soo saartaan yaa soo saaraysaan waxay dalu jaam maxamed codka bariga afrika degmada ceelafeyn hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom